صلاة الله أكبر بعد كبلابي الله أكبر مركز لا هذا هي قعمها كور بعض قاضي قعمها مركز قاضي يسكر دور كتلمامة يصوص عدو فيرسو قعمها فرهودو ويتوسنان ويتاجنان لما جدو لما نلعبه كربا لو تاجا هورين اللو ما تشيديو فرها كربا لو تاجا فرها مركز كور لو تاجا يو لما كلا قاضو صار لما فراجيو لا يسكمنا دشيو سيد الدبيعية بالو دايا سيد الدبيعية مركز أديسو كورنا يتاجا يهين أما الله بدأ قرب على السماء أما وحي رنتي كور لو قاضو بعد نجاها قيب تودا فروع أذنيه انت هوسه عرتوض أهبا على السماء إنه جمعها وقربها الله سنادان إنه نجاها في قيب تودا هوسه للمطلع سنادان لا بدأ ميلود متكاثر ربطات جين كرتا قربها مركي الله سن ميان أما كوا الله سن ميان على حاجات وتشيدين وحديثه مرفوع دليل ما له أنك لو تشيدين لكن أثر ابن عمر باكرو كعصحي وابن سعد في طبقاته كورينا يو علىها حاجة قبله وتشيدي بوليه لكن حديث ما لها أثر كاساس الشراء ما كانت قعمها قربها الله سنتو أما دقاها نداد عوض الله سيميسو دقاها تابا لغو مدهن قربها تابسين لغو مدهن كعمها قدال جينا لغو مدهن ماذا حق بصنا لغو مدهن كعمها مركز هلكا كسو عليسو الله أكبر نهبا لغويري الله أكبر تنه لغويري انت تسو عليسو لاب تصار بالغويري لكن وحتور لغو مدهن وانت تصاق كعمها وطورتو انت تسو عليسو لغو مدهن لوada gacmood mar baa la wada qaadaay kala dambaysiina lama dhihin sidii adigoo wax tuurayana saa isu daba mari laguma dhihin aanin tilmaamay inta ka badane gacmaha si aad ay kuugu fududaato inay intoodii aado gacmaha way lalmadaan marka gacmaha kor u qaadayso gacantu xubin bay leedahay hadii la laabo iyada isxirta iyada iscelisa marka gacantaada laabto iyada isxiraysa gacantaadan kor u qaadin inta hore kaliya soo laab halka isku xirta ku jooji garabkaagii bay la simanta ka gacanta laaso garabkay la simanta adoon gacanta kor u qaadin markay dhagaha noqotana halkan baad kor wax yar u qaadi tanaad kor wax yar u qaadi dhagtaada say kula sinaan lahayd dhagaha la islaama ee nin balba dhagtiisa kuluna diraa bi thuluthi way waxa laga rabaa inaad ku dadaasho dhagaha marka la sinto Allahu akbar baadi gacmuhu way horeyn karaan oo iyagoo taagan Allahu akbar tawaadi kartaa wayna dambayn karaan Allahu akbar marka tiraada kadib kor waa u soo qaadi kartaa wayna wada socon karaan isku mar waad ka dhigi kartaa saddexay waa lagu ogoliyay marka Allahu akbar tiraado waxaad niyeysan tahay salaada tukanaysa waxay tahay adoo maqan oo suuqa laba ku dhufale Allahu akbarna aska tiraado oo ogeyn goora tiriba looma baahna marka waxaynu leenahay Allahu akbarta markii aad tiraado labada gacmood waad isa saari midigta koreyn bidixna way hooseyn markaad isa saaraysana laba qaab labadaba waa lagu ogol yahay wixii ka soo haray oo dhanna waa qalad waxaa lagu ogol yahay labada gacmood inaad inta isa saarto waa lagu ogol yahay oo kafaynka aad isa saarto waa la ogol yahay inaad horay u durjiso ilaa dhudhunka gaarsiisana waa la ogol yahay labada jeerba inaad dul saarto iyo inaad qabato waa la ogol yahay adigu ama qabo ama dul saar inta inaad gaarsiiso iyo ilaa hore inaad gaarsiiso hore inaad gaarsiisana fadli badan laakiin maxaa khalada halka inaad qabsataa khalada Allahu akbar sida waa khalad faraha inaad isa saartana waa khalad Allahu akbar ama sidan tiraahdo ama sidan inay faraha mas'aladu noqoto isa saarkeeduna khalad weey
gacmihii xaggeed saari waxa ugu dhow wax aad u cadon war iyo hadal ka imanaynin ma hayne laabtaa ugu dhow ijtihaadaadka culimmada fuqahada kalena waa jiraano xanafiyadu halkaa gumeerka ay dhaheen waxay dhaheen balaayada dadka fasaadisay oo dhan meeshaasay ka timaadaa meeshaa ma u jeedaan alla bari weeye ilaahay inuu xifdiye halkaa baashaa loo daayay dhaheen rag baa kitaab ka qoray dirhamu sura fii wadci lyadayni taxta sura kitaab bay ka qoreen ay dilo ugu raadiyeen qola shaaficiyana waxay dhaheen maya bini aadamkaba halkan wadnaha laga xukumaa bahasha dhinaca yar bidixda inta loo badiyo wadnaha hal la saara ilaahu ii xifdiyada looga jeedo halkanaaba af iyo farjiba laga xukumaaye laakiin inta ugu dhow sunnada nabiga calaih salaam wax cad oon war ka daba imanaynin oon sixadiisa laisku haynin ma garanayo aniga laakiin waxa ugu dhodhow marka la isku jaabajaabaya la isku ururiyo laabta in la saara wey qisada waa'il ibnu xujriya laga warinayo gacanta midig koraysii ta bidixna hoosaysii halka laabta ana saar ama kor saar ama isku qabo ama qaybtan kafaynka isa saar ama ilaa dhudhunka gaarsii intaa markaad samaysa kadib allahu akbartii waa xirantay salaadii taxriimuha takbiiru waxay ku xihantaa allahu akbar wixii kuu bannaanaaya haasaawiya hadal iyo cuntaha waa kaa xaaraantinimoobay ilaa assalaamu calaykum aad noqotona wixii kaaga xaaraantinimay allahu akbar xalaal kuu noqon maayo waxaa imanaya wixii la aqrin lahaa ducadii istiftaaxaad akhrin noocyo badan baa soo arooraye hadba kii kuu sahlanaada talena waan kugu dariya haddaad ma'muum tahood imaam la tukanayso kuwa gaagaaban akhri yaan lagaa hor rukuucin imaamyadan qaar baad moodaa sbiidkay ku socdaan haywey inuu saaran yahay si adoon faatixadiiba gaarin aan lagaaga rukuucin kuwa gaagaaban dooro haddaadan imaamkaagu imaam salaada dheeraynaya aadan ku ogeyn ducooyinkaas way soo arooreen wayna fara badan yihiin qayb gaagaaban iyo qayb dheerdheerba waxbaan kaaga sheegi laakiin markaan camaliga u daadegno baan markii ninkii uu allahu akbar yidhahdo baan ku dul akhriyi doonaa si rukuucdana aan ugu dul akhriyo adkaarta istiftaaxa markaad akhrido kadib shaydaankaad iska naari kadibna faatixadaad akhriyi bisinkaadna faatixada ka bilaabi faatixada markaad dhammayso de faatixadii sharciga ahayd baa la rabaa qur-aankayd inaad akhrido dadka qaarkiiba haddii faatixada hadda akhriya la is yidhaahdo halkaa salaadaadu inayna u asixin faatixa darteed baa laga yaabaa nin baa waana tukiyey markaasuu wuxuu yidhi ihdina siraada almustaqiim masaajid buu na tukanayaa nin sheekhaa wuxuu yidhi kan weligii salaad kama asixin dha carabi kuma jirta sooma ihdina siraada waxaase igu yaab badnayd maalinkan madraso tegey een kitaab tajwiida nin weydiiyey ee uu yidhi hal nuskhaan hayaayoon ardada u dhigo markaasaa waxaan idhi maasha allah ninkan aad ka barata tajwiidka markaasa waxaan ku tamaniyey maalinun bal salaada inuu na tukiyo ilahay wuxuu qadaray subaxii dambe baa imaamkii la waayey isagaa la sheekh gal baa la yidhi meeshii baa la geliyey laytahu maa dakal ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim qayri almaqluubi calayhim walallaalikuy markaas waxaa idhi kan cilmuhu tajwiidka baraayey waa sidii alla yidhi uun iska dheh waadalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa ummadda waa lumiyey kanuu tajwiid macallin ugu yahay faatixada waxaan uga jeedaa waa inaad iska saxdaa akhriskeeda waa inaad sidii ilaahay u soo dejiyey qur-aankii aqridaa 60 baan jiraa 50 baan jiraa 30 sano 40 baan tukanaya faatixana ma akhriya aqaano waa khatar bakhaariistii xuruufta waa inaad barataa waa inaad qur-aanka ilaahay akhridaa faatixadii oo sidii la rabaya waa qasab wixii ka dambeeya waa sunna suurad iyo inaad wax ku darto faatixadii keliya markaad akhrido ama suurad ku darteed dhammayso rukuucdii baa iman allaahu akbar baa la dhihi gacmaha sidii hadday markaad xiranaysay aad u qaaday
tabtii baad samayn ama garbahaad la simi ama dhagah kor baad u qaadi waad rukuuci lawyahaad qabsan lawya qabsigii baan tilmaamaynaa marka rukuucda markani waa meelaha khatarta wey saa darteed waxaynu leenahay markaad rukuucayso labada calaacalood labada lawsaar calaacalahaaga labada lawsaar farahaaga way fidsanaan waadna kala qaadi lowgana waad ku qabsan dhab baad ku siin kaannahu qaabidun calayhimaa sidii isagoo labada low qabanaya calaacasha markaad saarto farahoos fidsan baad saa ugu qabsan waxaan uga jeeda waa lowya halkan aan rag saari doonaa insha allahu tacaala aniga waan ka cabsaday inaan ka dhaco waxa wey naftaan yar jeclaysa rag fudud baan rabaayo hadduu dhaca la qaban karo labada calaacalood lowyahaad saari fadac raaxatayka calaa rukbatayka farahaagana markii hore waxaan nidhi la iskuna dhajin maayo marka kor loo qaadayo mar kastaba saana la dhihi maayo caadi bay ahaan marka rukuucda la joogo waa la kala qaadi marka sujuudda la joogana waa la isku dhajin saddexda xaalay faruhu noqdaan faraha waad kala qaadi calaacashaad saari saasaad ugu qaban taa waa gacmaha iyo lawyuhu say isu qabanayaan gacmahaagan labada dhinac waad ka durkin haddii aadan tabcan saf ciriiriya ku jirin wey haddaad saf ku jirto dadka inaad kadh ka siiso dad dhibta lama ogola laakiin markaad waasac haysato labada dhinac gacmaha waad ka durkin taana waa midda labaad ta saddexaad dhabarkaaga wey dhabarka waa toosin dhabarka ilaahay abuurka dadka ma simin oo de marka horeba dhabarka lama wada sinna laakiin inta ugu badan ubaad samayn dhabarkaaga waxaa la rabaan idiin sheegi marka hadda saa u taagan tahay si toos aad u istaagto sida ay madaxaaga iyo dhabarkaagu isku yihiin baa la rabaa markaad rukuucdana inay noqdaan see la doonaya saa wey shaatigaagu hadduu hayay halkaas waa inaad madaxa halkii ku cabirto shaatiga halkiisii u yimaadaa markaad rukuucda dhabarka waad simi markaad lawyaha qabsato de dadku isku mid maahe ama lawyuha kuu soo taagnaadaan ama gadaal u riixoo toosi intaan arkay waxaa ugu sahlan lawyaha iyo lugaha inaad toosiso aynan kugu soo godmin hadday soo godmaan badana waxbaa isdaamara markaad lawyaha qabsato dhabarka waa toosin si haddii koob la saaro una waxu noqonaynin dhabarka waa toosin madaxa sow ma aha kor ha u taagin sidii cali dhuruq hoosna ha u laalaadin sidii aw dameer dameeruhu markay socdaan madaxoodu u fooraraa dhurwaagu markuu socdana madax iyo dayadu kor bay u taagan labadaa midna ha samayn madaxa la sin dhabarkaaga iyo madaxaagu waa inay isku toosnaadaan oo sida caadi markaa u taagan tahay isugu toosan yihiin waa inay isugu toosnaadaan waxaad u baahan tahay intaad rukuucdo dhabarka lagaa riixo dhinac lagaa soo riixo in lagu tootoosiyo waad u baahanaysaa rukuucda markaad saa u rukuucdo adkaarteedaad akhriyi adkaartii baad akhriyi adkaarta hadhow baan ku dul akhriyi doonaa qaybta dambaysa inay igu laba goor dheeraanin marka adkaartii akhrido rukuucdaa waa inaad ku xasishaa oo aad kala saartaa soo socodkaagii iyo sii socodkaaga dambe laakiin rukuucdu hadday noqoto meel aan laba gaarin oo aad tiraahdo allahu akbar samic allahu liman xamid haddaad tiraahdo salaadda waxba kama jiro qaar baa si u sii socdayba waa soo laba goor noqday waa rukuucda xataa yaطma'ina raakican ilaa uu rukuucda ku xasila qofku baa la doonayaa salaadan laga cararayo kadibna bannaanka la taagtaagnaanaya xal maaha macno maaha markii aad rukuucda ka soo toosayso cumuuman haddaad keligaa tahay ama aad imaam tahay samica allaahu liman xamidah baad dhihi gacmahana sidii baad u soo qaadi ama garbaha ama dhagaha waa sidii gacmuhu markaad xidhanaysay markaad rukuucaysay iyo markaad ka soo toosaysay gacmuhu iskumsi baa loo qaadaya markaad soo istaagto adkaarteedaad akhriyi dib baan ka akhriyi doonaa
laakiin waa inaad iyadana ku xasisho oo sii socodkaagii iyo soo socodkaaga si socodka dambe iyo soo toositaankaaga waa in la kala gartaa nabiguna arrinta aad buu uga digay mararka qaarkood suu u taagan yahay bay saxaabadu anas yeeleen xataa qulnaa qad nasiya wuuba halmaamay show inuu rukuucdii ka soo toosoo sujuud sugaysay dhihi jireen laakiin haddaad rukuucdii ka soo toosto oo tiraada samica allahu liman xamida sii sujuudaba qaar waxaad arkaysaa gacmihiiba lowyaha kama qaadin saad uu toosayaba allahu akbar waa sii socdaa taa salaad maaha ilaahay ma aqbalo طمأنينة laga rabo waa arkaanta salaada markaad xasisho adkaarteedana aad aqrido markaa kadib sujuud weeye allahu akbar waa sujuuday gacmaha ka bilow lowyaha ka bilaabi oo nabiga wuxuu yidhi waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi gacmaha horreysi dhag kadib lowyaha dhigo markana dhowr arrimood baad u baahan tahay inaad saxdo marka haddii aad sujuuddo gacmaha faraha waa inaad fidisaa kow waa inaad qiblada u jeedisaa waa laba oo saa iyo inaad u jeedisaa ma aha waa inaad faraha isku dhajisaa saa darteed u fiiriso marka rukuucda waa la kala qaadi sujuuddana waa la isku dhajin rafculyadaynkana wax labadaa u dhaxeeyay ahaan saddexdaa xaaladood weeye faruhu waxay maraan farihii markaad toosiso iskuna dhajiso qibladana u jeediso dhulkaad dhigi laba meelood baad dhigi kartaa marka waa sidii kor u qaadkii bay shabahdaaye labada garab hoostooda inaad dhigto iyo labada dhagood hareerahooda wejiga labadiisa dhinaca inaad dhigto labadaba waa ku furanta waa meeshaad dhigi lahayd gacmaha ama labada gacmood dhexdooda ku sujuud oo wejigu halkaa bartankooda ha ku dhaco ama gacmaha dib u soo yar celiyo labadaadan garab halka dhulka kaga aadan dhig intaa markaad samayso gacantaada dhudhunkaa dhulka ka ilaali walaa yabsut diraacayhi basta alkalbi sida aygu lugaha u dhigto waxyaabahaan lowga xubinta lahayn say u wada fidsadaan ha u fidsan dhudhumadan dhulka ka ilaali kow calooshaada bowdyahaaga ka ilaali waa laba oo caloosha bowdyaha inaad ku dhejisa lama ogole kor uga qaada rag iyo dumarkaa dooni ahow tafriiqa shaaficiyadu daciifaan daliil lahayn wey labada gacmoodna dhinacyada haddii aad meel waasaca haysato gacmaha iska qaad ilaa kilkilahaagu muuqdaan calooshaadii kor baad u qaaday dee hadday kuu qaadmayso wey qofkayna u qaadmayno waa imtixaane allah fududeeyo caloosha kor u qaad gacmahanna dhulka kor uga qaad dhinacyadana ka fogee ilmaha yaryarkee waxaaraha iyo arigaydaha ama baraarkaa hadduu rabana hoostaada caloosha ha maro hadduu rabana gacantaada hoos maro waa in gacantaadaas iyo dhinacaaga dhexdooda ilmuhu ka dusi karo waa in calooshaada iyo dhulka dhexdooda iyo bowdyahaaga inta udhaxaysana ilmahaasi ka hoos dusi kara yararkee waxaaraha wey ilmaha yararkee ariga waa inu ka hoos dusi karaa saasaa lagaa doonayaa intaa waa qaarkii hore wey gadaal qaarka dambe ima lugahaagi luguhu waa inaad ama faraha dhulka ku istaajisaa si toosa waxaa ka sii fiican intaad dhulka ku yar nabto inaad faraha xagga qiblada u yar jeediso haddaad faraha atraafta saartana dhib ma laha haddaad intaad dhulka ku yar nabta xagga qiblada u jeedisana ka sii fiican haddaba lugahaagii waa sidaas madaxa markaad saarta marka say caloosha kor ugu kacdo waa inaad horay miisaankaaga saarto miisaankaaga waa inaad xagga madaxa u badiso laakiin aad gadaal intaad isu nabto madaxa dhagka saa madaxa saa uga siisa adoo gadaal isu nabaya lama ogola markaad sujuudaysa intaa keliya ma aha wejiga iyo sankaba waa inaad dhulka saartaa sanka iyo wejiga waa inaad dhulka saartaa inta markaad samayso adkaartii baad akhriyi tumaaniinadii ku-xasilkiina waa qasab haddaad saasaa u saarta saa ula soo booddo sidii shimbir biyo cabbaysa salaadaada waxba kama jiro markaad dhammaysato allaahu akbar baad soo dhihi
oo waad fariisan fadhiga laba ku furan inaad labada lugood taagtood cirbahooda ku fariisato waa la ogol yahay labada lugood cirbahooda kor inaad ku fariisato oo isdheerayso waxaa kaloo la ogol yahay inaad lugta midigna ay ku taagnaato tabiixina aad ku fariisato oo iftiraash la yiraahdo kana iqaaba la yiraahdaa kana iftiraash baa la yiraahdaa labada waa lagu ogol yahay kow gacmahaagana lowyahaaga aad saari tumaaniinadii inaad ku xasisho iyadana waa qasab adkaarteediina waad akhri marka adkaarteedii dhammaysato sujuudii labaad baad ku celin waa sidii hore oo kaleeto waad ka soo noqonoo allahu akbar markaa soo tiraahdaa waxaa fiican inaad hakato jalsatul istiraaxa la yidhahdaa oodan horay sidii fallaadh iyo warankii aadan ugu bixin xadiid kale kaannahu sahmu sida fallaadhaha loo baxay tabaraani iyo wariyeen waxba kama jiro nabigu waa soo fadhiisan jiray markaa kadib buu kici jiray markaad kacayso hadyiga nabigu cala salaam gacmaha cusko in lawyaha la cuskada maaha in gacmaha dhulka aad ku cuskata wey kaana yactamidu cala alardi dhulkuu cuskan jiray gacmaha dhulka ku cuskoo sidaa u kac markaa istaagto allahu akbar baad dhihi sii socodka baad ku takbiirsan gacmihii sidii baad isu saari faatixadii sidii baad u akhriya markaa labaad istiftaax iyo wajahtu wajhi ma leh faatixadaad akhri sidii baad usoo rukuuci sidii baad usoo sujuudi intaa waad soo martaye ataxiyaadkaad iman ataxiyaadka markaad timaado labada gacmood labada low baad saari amaa ta bidixda ah laba khiyaar baa furan inaad faraha fidiso lowgana kor saarto oy gacmuhu fidsanaadaan iyo hore intaa u durkiso inaad lowga sidii wax ku qabsanaya ka dhigto labadaa wejba waa kuu furan yihiin tan midigtaasow ma aha saddexdan waad laabi tanna way taagnaan suulka see la yeeli ama isagoo fidsan baad farta dhexe iska saari ama wareeg baad ka dhigi xalaqada isaga iyo farta dhexe labadaaba waa kuu furanta inaad wareeg ka dhigto ood sidii eber ama zero ama goobada ka dhigto iyo inaad iska soo fidsan iska saarto labada wejba waa lagu ogolyahay suulka tan ha taagnaato saddexdana hala laabo waad ku ataxiyaadsanaysaa ataxiyaadku kii hore hadduu yahay salaaddu waa laba qaybood salaad hal ataxiyaad leh mise salaad laba ataxiyaad leh salaaddu hadday laba ataxiyaad leedahay sunniya faradkay dooni ha noqotee ataxiyaadka hore lugta midigtaana waad istaajin lugta bidixdaana waad ku fadhiisan saasaa fiican ataxiyaadka dambena lugta bidixdaa xaggaasaad u bixin tawaruga kan la yidhaahdo weeye ama sintaad ku fadhiisan tawarug warigu waa sinta ku fadhiiso ama lugta ku fadhiiso iftiraasho lugtada goglo wey salaaddu hal ataxiyaad hadday leedahay labadooda isku mid wey kaad samaysaba haddaad lugta ku fadhiisato iyo haddaad dhinac u bixisaba isku mid weeye waxba isma dhaamaan midnana daliil khaasa ma laha labada qolabase markaad la joogto midkaad la joogto baad moodaysaa daliil cad inuu wato hal xadiidu abi xumayd isaacidi ah oo labadaa ka hadlay buu midba jumlo kuu soo qaadan mid qaybta hore kuu soo qaadana waidaa jalasa fi rakcatayni iftarasha buu ku dhihi ka kalena wuxuu kuu soo qaadan waidaa kaana fii aakhiri salaatihi tawaraka kanaaba nasku abuu mid walba ku dhihi laakiin asalka xadiidku salaad laba ataxiyaad le buu ka hadlayay marka horaan raacinaa waa ataxiyaad kama horeeyo mise ka dambaan raacinaa assalaamu calaykum baa ku xigtana masala ijtihaadiya wey kaad samaysaba wax daliiloo kala fadilaya garan maayo intaad ataxiyaadsanayso fartu way kuu ishaari tawxiid bayna tilmaami farta ma dhaqdhaqaajinayaa xadiidku ma asaxay bay ku xihan tahay yuxarikuhaana xadiid la wariyey wey laa yuxarikuhaana xadiid la wariyey wey yushiiru bihaa uu ku tilmaamayeyna waa xadiid inteeda badan wey culimmadu saddex way u qaybsameen marka qolo waxay ku yidhaahdeen yushiiru bihaa keliya asaxday
yuxarikuhaa laa yuxarikuhaa waxba kama jiro halkaa qolaa martayo dhaqdhaqaaq warkii ma jiro qolana waxay yidhaahdeen way wada asixeen yuxarikuhaa iyo laa yuxarikuhaa labadaba way asixeen xadiidka cabdullahi bni zubayr iyo xadiidka caasim ibnu kariimin can abihi can jaddi intaa way asixeen bay yihahdeen oo maxaa la samayn yuxarikuhaa waxaa lagu jamcin bay yidhaahdeen waa sida bayhaqi iyo rag lamida markii shahaadatu tawxiidka la soo gaaro baa la dhaqaajin yuxarikuhaa taasaa looga jeedaa laa yuxarikuhaana inta ka dambaysa ma dhaqaajinaya wey qolana yuxarikuhaa keliyay saxiixiyeeno laa yuxarikuhaa ma asixin bay dhaheeno farta hala dhaqdhaqaajiyay yidhahdeen see loo dhaqdhaqaajin baa timid daliil gaara ma laha haddaad maaliki tahayna dee farta saasaad u wareejin saasay u wareejinayaan maalikiyadu ama midig iyo bidix saasay u wareejiyaan laakiin intooda badan qolana adigu haddaad tahayna innaga modeelka hadda socda sidaa keliya wey sidan keliya waxa keenay ma taqaanaan fuqahadeena shaaficiyada waxay yidhaahdaan farta in la dhaqdhaqaajiya waa karaahiyo hadduu kafku la dhaqdhaqaaqana batalat salaatu marka waxaan rabnaa inaan dhaqdhaqaajintii ku dhaqanno ixtiraaskii batalat salaatuhuna aan ka fogaano see loo jamcin karaa sidaa haddaan nidhaanay dee kafku ula dhaqdhaqaaqi salaadaada inay asaxda iyo in kalaa muran geli marka aayarsan dhaqdhaqaajin un baa lagu yidhi sidan isaga dhaqdhaqaaji calaa kulli xaal xad go-an ma laha iyo qaab ataxiyaadkii hore iyo kii dambe kii hore markaad dhammaysato id ragcadda saddexaad u istaagaysa salaaddu hadday laba leedahay gacmahaad kor u qaadi markaad istaagto kadib markaad istaagto kadib fadhigaa kor loogu qaadi wahmi weeye waxba kama jiro waa wahmi sheekh naasir ka dhacay iyo dadka oo wahmi kale kusii daray wey laba la isku daray wey dadkii oo ka badba waxuusan dhihin yiri iyo isagoo wahmiyey wey isagu wuu qiray haalibka axaadiistu marka la istaaga kadib inay tahay waxaadna ka garan kartaan isagoo fadhigu kor u qaadi wuxuu ku yihi axyaanan marmar haddii marmar la yidhi intii badnayd maxay tahay bacda alqiyaami wey wa kaana idaa qaama hadduu istaago araada alqiyaama ma soo aroorin ibnu cumar oo dadka saa wariyey ka mid ah waxaa ka sugan inuu leeyahay wa kaana laa yarfacu yadayhi fii shayin min salaatihi huwa jaalis nabigu weligii isagoo fadhiya gacmo kor uma qaadin tan inuu kor u qaadayna waa ka warinayo waa arkay buu isugee marka uu taagnaa wey saa darteed inta axaadiistaasuu ishaarayaa sheekh naasir markuu kule axyaanan ku leeyahay inta badan taagni baa kor loogu qaadaa taa maynaan ku baraaruginoo daa'iman fadhi baa kor loogu qaadaya sheekhu ma dhihin axyaanan marmar buu yidhi inta badan adoo taagan qaad marmartaa daliil ma laha wahmi sheekha ka dhacay wey sifatu salaadka xataa asalkiisii markaad ugu noqotay meeluu kaga hadlay wax daliila ma laha waxaa la hubay la isku qirsan yahay markaa istaagta kadib gacmaha sidii kor ugu qaad wey waa ataxiyaadsateen ataxiyaadkii baad aqrideen assalaamu calaykum iyo salligii nabi sl assalaamu calaykum midig in la dhaho ilaa dad kaa dambeeya dhabankaaga arkaanna way soo aroortay in laba laga dhigana waa soo aroorto assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum la yidhaahdo waxaa kaloo soo aroortay hal mid in lagu gaabsado oo hore inta loo yidhahdo assalaamu calaykum kadib wax yar saa loo janjeersado oon badnayn labada waa la samayn karaa halka marka la gaara dee wataxliil watasliim waan maraynaa laba masale aan kugu baraarujiyoo kale marka waad rukuucday waadna soo toostay gacmaha seedhihi wax daliil ah ma laha ha lagu celiyana daliil gaara ma laha ha la lalmiyana daliil gaara ma laha labada qolo waxay daliishadeen qolo waxay dhaheen waa lagu celin maxaa u daliila haddii la sii daynayo daliil baa sheegi lahaa haddii la sii daayo ay tahay daliil baa la heli lahaa qolo waxay dhahen may lagu celin maayo waa la sii dayn maxaa u daliila haddii lagu celinayo waa la sheegi lahaa warka nuxurkiisu intaa way daliilkooda hadalka imaamu axmed yiri baa iigula dhow in shaaa qabada wa in shaaa arsala hadduu doonana wuu ku celin hadduu doonana wuu iska dayn wuu sii daysan laakiin rag baa isku feedha jabayo bugti iskaga geliyey aduu aad ha isugu xiijinin masalada labaad waan sujuuday labada cirbood ma isku qabanayaa jawaabtu waa maya ma asixin sheekh naasirna masaladaa wahima
حديث كاسنا وحديث صحيحين كويا له هل نمبا زيادة عند الطحاوي كدر راسا عقبيه وحديث قصة عائشة هبينك النبي أي ويدي أي دايدي وي حديث كاس البيه سو تاجم بيجعنت كهدفته وهو منصوبة تاني انت ورواية صحيحة هذا راسا عقبيه لبن نمبا ومبشوف سنوحة ورزيه الطحاوي ابن خزيمة ابن خزيمة واكشكيه وحولي إن ثبت إن صح الله وضع متكون بلفظ قاعد دوسون هذا صبرته وحال لفظ لك اليوبور رواد ثقات كانوا لنا الشيخين نلا يحيى بن أيوب الغافقي وحفظه صداع في كتشره حديث كانوا حديث مشهور وثقات كوريين كاسو كان في قاعدة أهل الحديث الصحيح لما أقبله مكان راسا عقبيه ما سقنا سالك الشيخ ناصر قلت عقبيه من كملتها هي رحمة الله عليه أنا ربنا رجل كلا صبح وحيد بن تكبير لقى بالله إلى التسليم تلقى جاره ده هل كان رجع صاران ربع نفض بان ربع وحالي الشيخ بشيري وليس كهذا ماشي بيده قادام كون ميسس كان يركن الله فاير ولا شبيه ما يمرق ير بانيل نين كان انقرنا يا نين كان سوكعين ايه انت انا تصوف ان شاء الله قال ربع صلاتنا صلاة ما تكنين صادرت القبلة دور كانوا يدوين قبل عن كل شيء ديننا ترى أنت وحي كدم بيا وأنت قفكي أن هرتاجنين أي هول يكون نقطة قفكو مركو صلاة حرنا يا وحين ونري كعمها قربة لو تاجي labada garab la sin ama dhagaha la sin waxa kuugu sahlan gacmihii lalmaday siday ahayd u soo celi iyada isxiraysa haddaad kor yar qaadi rabtana sidaa u yar qaad gacanta tana soo kacdeego tan kor noqoshadeedii waxba iskama bedelin faruhu ha taagnaadaan aadna ha isugu dhajin aadna ha u kala qaadin allahu akbar baasaa lagu yidhaahdaa haye وإلى دعوة إسحاق معلومة فضل ممكن حرر إسحاق ده لقيت برجع ربع صح يا أستاذ خالد كعمود دقها ويدافن هل كان إلا سنين أوكي كعنت هذا مركز ساعة هاي قرب كمركز الله سميس أنت كره هذا قاتشن أنت انكليه سلام وي ما يبغاش كتن كره وقادس طاير كليه انت كليه علي قربك على سمنت كره ضويه القادنا دغت هذا سمنت الله اكبر كاتراادو لا رجع مدي صار sidaas waa banaanta inuu gacanta meel haysata misaad fidis sidana waa loo goliya kor yar qaad laakiin halka laabta ku aadi hore inaad gaarsiisana waa loo goliya laakiin labada inaad qabsato lama ogola استفتاحي بعد قرية مركز أبو حاخي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم اغسلني بكورس من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تاوى لو قليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل مله حديث قرآن كويتاس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين انت واكو قاب سنكرتا كدي مركا انت اخرد حدات سو قابين ربتنا حديثك عائشة كو سهلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انت انا واكو قاب سنكرتا كدي واد صار ركوعي فاتحه دي بعد اقري فاتحه امتحان كذا هذا كما بحكرنا وحي كلي كدن بيد اقريسا حدات كليغا تahay ولا ضالين marka tiraado kor baad u dhii aamin aamin kama iska sida
آمين ميم كاشدين لاحن وي آمين والله ما كان يعرف هذا الشدو آمين وحنو قصدني وي إنما الفقهاء الشافعية وحي قوان صلاة دول يكبري وهو كلام الناس وي آمين إله أقبل وي لكن إنك واكو ساكس وكرأي آمين الله وي آمين وي كرباض به هذا الإمام تهينا كرباض به ماموم هذا تاي محاد سامين ومسألة علماء اسكوهيان ومسائل كأي شافعي يا شافعية كوكا العتاقين إمام الشافعي وحوق قواسيد أمك وكوكا رهوس بعض به آمين ضدك كرنا واقع ما يمساجك شافعية كربا الله واقع يا قوان نتصماليا وحولته كذا ما حنافة مسألة المغرب إمامك مركو ولا الضالين بكر كلي ما كان حدا واقعي آمين كلي وي هذا مركو صباح يقول الهندي حسد سنة ويقبح يقول صلاة يقعد السنة ويقبح الصلاة آمين إذا كان والله يبين ومذاهب ورمضوا كلا قبان سورة دي كده بيسمرك الله قريه وتصور الركوع هذا عن ربنا كتوس أي ركوع سأل الله ركوعي يقول ميمس الله أكبر باليري والله الركوعي قامهني سدا واكو سحيين فروه أكل تكسيين على عشر لو يكون دنتهي وانا هي واقبتي سيفي عم بوعس كذا أوكي نورك بوحي ربها أنا نسيت المام نورك ويا الكرية هل كان هو سدتي دورك أو سيدا إنه توصنا على الربا ولي وحير ماذا حسوعلي كرو علي مركز سيدا وكلاته مشكلة وحيكا قبستا تنكر قاد أوكي هل كان وحان ربا كوب إن أنصاره ووي استاغو ماذا حانا سيدو قميس كاغو هيي تيمها مركز عادي واستاغتي با مركز ركوع سنتهين إنه هيي الربا وتاجند هذه بالركوع كوي من عيسى طيب سمع الله لمن حمده مركز يا توس قاعدين سيدي واكر له قاضي هل كيف ولا جاي ركوع ده انت للركوع سيء محل عقرنا اياه سبحان ربي العظيم وتكوع العلين كرتاه انت هاد بكون سالمات وحتكوع العلين كرتاه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتكوع العلين كرتاه سبحانك اللهم اغفر لي اما سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لينا وتكوع العلين كرتاه وهكذا أقري كرتا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين مدبو آخري كرتا هذه صلاة الليل تهينا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والآخري كرتا انت ما كسوستوسو سمع الله لمن حمده وعده هداد كليغاته يا هداد امامته هداد مأمومته امامكم مركو سمع الله لمن حمده يرادو ادو ربنا ولك الحمد وعده انت وحي كدن بيواد وداكتان ربنا ولك الحمد نواكو ديسان كرتا وحوغينا واكو داري كرتا وحاكو داري كرتا ملء السماوات وحاكو داري انت روايتك صحيحة عنك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انت صار لك عربة تاجنا كو آخر نينكي سي سعود نحن كان نقوني قرب وحقري قران ماي كدب والسجودي أيه سجود الله دين عوض سي جيسان دونتاي marka aad sujuudo horta gacmahaagu faraha waa inaad isku dhajisaan ku yiri oo labada gacmood qibladana u jeedi waa u jeedaan taban laba ku furan inaad hore u yar durkiso oo wajiga labadiisa dhinac dhigto waa lagu ogoliyay
inaad dib u soo dhigtood garabkan hoostiisa ku aadisana waa lagu ogolyahay labadaa wejba waad samayn kartaa sankiyo wejigu madax dhulka waa inay taabtaan gacmahaagan waa kuwaan nili labadan waa inay ka koreeyaan dhulka dhinacyadana waa inay ka baxsan yihiin calooshaaduna waa inay bawdyahaaga iyo dhulkaba saa uga sarraysaa halkan haddaba ilmo yaroo waxaraa waa mari karaa oo gacanteeda ka xaggaas uga bixi kartaa laakiin haddaad caloosha hoos ugu nabto ood bawdyaha qabadsiiso midda kale culayskaagu waa inuu xagga wejiga fuulaa yataxaamalu calayhi ereygaa macnihiisa saasa madaxuu culayska saari jiray wey dhinaca kale u jeedso dhinaca kale u sujuud lugahaaga aan rabaa inaan tuso dadka sujuuddaan joognaa marka la sujuudo sidaa waa sida ugu fiican lugaha laakiin haysa saarin sida caadiga iyo yunuda lugaha farahooda inti lagu yar cadaadiyey qiblada inay u jeedsadaan waa sida ugu fiican waxaa la ogol yahay inaad faraha saa u saarto keliya ku nabin inaad faraha keliya saa u saarto waa la ogol yahay faraha qotomiso waa inaad saa isku xambaarta gacmahaagana haddii aadan qaarka hore wax ku qabin sida markay xajka tahay laba goo qabto kilkilahaaga in la arkayo caddiinkooda wey ama caddiin madowgooda marna bayaadu ibtayhi baa lagu dhihi man xataa tabduwa cufratuhu cufra waxaa la yidhahdaa meesha timaha lahayd marka laga xiiro madow baa ka muuqanaya salka soo maaha taasaa cufra la yidhahdaa sujuuddu sidan wey haddaad laakiin waxaa khalada inaad sidan tidhaahdaa waa khalad waxaa labaadoo khalada adoo sujuudsan inaad sidan tidhahdana waa khalad waad arkaysaan dad saa leh waa isu saaraya baallaha lugaha isu saaranayaa khalada ayib soo fadhiisa hadda ataxiyaadka waa la rabaa xagga usoo jeedso waxay u keen dhima waa ataxiyaadki fadhiiso fadhiiso wixii kale ay dhimanaan hafay idinka ay xusuusin doona markaad ataxiyaadsanayso gacantan sidaana way furan tahay lowga inaad ugu laabto inaad dib u durjisood saa ugu fidisana waa la ogolyahay laakiin halkaa inaad cuskataan meesha ku jirin oo gacanta kodinta u laabata halkaa qabsato lama ogola gacantaada sidan ah qasab maaha inaad dhulka ka qaado sidanaad isaga sii daysanaysaa xaddi mirfaqihi calaa fakidihi bay riwaayaad ku leeyihiin xusulkaaga darafkiisuu bawdada saari jiray tan labadaa wej baa furan tan faraha waad laabi suulkan laba xaaladood baa lai ogolyahay inaan isaga fidiyoon taa kor saara farta dhexe iyo inaan wareegga ooda a sameeyo 53 shantiina wataas saddexdiina wataa 53 carabi ah baa meesha ka muuqanaya shantii iyo saddexdii saddexda carabiga saasaa loo qoraa dhinacan aad u akhriyi shantana eber ahaan baa loo qoraa halkan aad ka akhriyi 53 markay ku leeyihin saa wey sii jees haddaba lugaagaan raba inaan tuso marka la atixiyaadka iftiraash iyo tawaruk baa jira marka lugta in lagu fadhiisto waa sidan lugtanna wuu ku fadhiyaa tanna saasay u taagan tahay faraheeduna qiblahay u jeedaan salaadoo dhan waad samayn kartaa labada sujuudood dhexdoodana waad samayn kartaa laakiin sida fadliga badan labada sujuudood dhexdoodana saa samee salaadaha labada ataxiyaadle ataxiyaadkooda horena saa samee salaadahaan labada ataxiyaad lahayn ee hal ataxiyaadlena tan iyo ta kale isku mid wey hal ragcad bay noqon kartaa watara laba ragcadood bay noqon kartaa farad ama sunna 5 ragcadood oo sunno la isku bixiyay noqon kartaa ama 9 sunno uu yeeri jiray cali marka qaarkood tawarruk baa furan oo lugtan xagga in loo bixiyaa xagga u bixi lugtaas sinta ku fadhiiso sinta in lagu fadhiistana waa ataxiyaadka salaada ugu dambeeya salaadoo dhan haddaad u fadhiisata dembi maaha iftiraash iyo tawarugu waa afdal keebaa afdala wey inay labaduba bannaan yihiin oon salaadda wax u dhibaynin muran kama taagna xanafiyadu weligood lugta way ku fadhiistaan salaadoo dhan maalikiyaduna salaadoo dhan lugta xaggay u saaraan tawarug wey salaadoodo dhan xataa labada sujuudood dhexdooda waxaa furan labada sujuudood dhexdooda labada cirbood inaad ku fadhiisato
sida tan oo kale ka dhig aliqcaa baa la yidhahdaa in gadaal gadaal loogu fadhiisto nooc kaloo iqcaa la yidhahdaa jiro xaaraana oon salaada dhexdeeda la ogolayn kan laakiin waa kii xadiidka ibni cabbaas ah ee sunnada nabiga ay ka mid tahay u yidhi sala allahu alay ali wasalam ayib caadi u fadhiisa soo jeedso iqcaaga aan la ogolayn waa salka dhulka saar lawyahana kor igu taag lawyaha kor u taag salka dhulka saar lawyahana kor u taag sida ninkaa u fadhiiso salaada saa inaad u fadhiisata lama ogola salaadda in saa u fadhiisata lama ogola saasaan ku ataxiyaadsan haddaad tiraahdo ama addoonyeysataba ataxiyaadkii lama ogola ayib anadoo haddaan fadhi ku tukanayo fadhigii ataxiyaadka iyo fadhigii taagnida ma kala duwan yihiin saa u fadhiiso markaad fadhi mayme lugaha isdhaafi lugaha sida ninkan markaad salaada fadhi ku tukanayso booskii faatixada la aqrinayay iyo booskii rukuucda ka dambeeyey saas mutarabican baa loo fadhiistaa si labada fadhi ataxiyaadka iyo qiyaamka ay u kala duwanaadaan sinaad faatixada ku aqri lowyahan aad ku rukuuci waad soo toosi markaa kadib baad sujuudi oo sida ataxiyaadka haddaad u fadhiisan karto aad u fadhiisan haddaadan fadhiisan kartona lugaa ka xanuunsan tahay iyana sidii kuu fudud baad u fadhiisan waxaan rajaynayaa assalaamu calaykum markii la leeyahay baa labada dhinac loo jeesanayaa ataxiyaadkiiya waxaa ii dhiman sujuuddii wixii la aqri lahaa maanan soo dhihin baan u malayn sujuuddii rukuucdu aad bay isugu dhow yihiin subxaan rabbi alcadiimtii subxaan rabbi alaclaa u badal subuuxun quduusu rabbulmalaa'ikati waruuxina akhri subxaanaka allaahuma kfir lii subxaanaka allahuma bixamdika allaahuma kfir liina waad akhrii subuuxun quduus subxaana diljabaruuti walmalakuutina waad akhrii laakiin allaahuma laka rakactu meeshii ahayd allaahuma laka sajadtu waad dhihi allaahuma laka sajadtu wa bika aamantu waa isaga mid walaka aslamtuna waa isaga mid meeshii khashaca aad ahayd sajada wajhi baad leedahay marka liladii khalaqahu wa sawarahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi fatabaraka axsanu khaaliqiin markaa ka soo toosto labada sujuudood dhexdooda waxaad ku celcelin kartaa allaahuma kfir lii allaahuma kfir lii allaahuma kfir lii keliya waad ku gaabsan kartaa fadhiga labada sujuudood u dhexeeya allaahuma kfir lii allaahuma kfir lii keliya ku gaabsan kartaa waxaa kaloo dhihi kartaa halkan hadda imtixaana yaan weydiiyaa maxaa la dhihi igu celi allaahuma kfir lii warxamnii wajburnii wacaafinii warzuqnii wahdinii aw ayib daahirka riwaayaadku alfaadda way isdaba marmariyaan bacdu riwaayaat sheekh naasir isagoo riwaayad uu doortay waxay ahayd baan u malaynayaa allaahuma kfir lii warxamnii wajburnii wahdinii warfacnii wacaafinii warzuqnii saan ahayd baan u malaynaya wacfu canii kuwa ku daraa jira calaa kulli xaal markaad taa soo akhrida ataxiyaadka isku wada mid weeye dhowr arrin laa hal arrin bay ku kala duwan yihiin tashahudka ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas baa ugu mashhuursan iyaguna wax badan kuma kala duwana iyo kan cumar laga warinayo ataxiyaatu lilaahi waad dhihi kartaa wاsalawaatu wاطayibaatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتكديس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله xagga hore xadiidka ibn cabaas baa ku daraya التaxiyaat الmubaarakaat الصalawaat الطayibaat lilaahi lilaahidoo gadaal la mariyey
iyo almubaarakaatu hore lagaga daray intaasi kala duwan yihiin xadiidka cumar wuxuu kaga duwan yahay attaxiyaatu almubaarakaatu azaakiyaatu azaakiyaatu wuu ku daray isagana midkii aad aqridaba dhib ma leh atixiyaadka markaad dhammaysato salliga nabiga ku xiga sal alla alay slam siiqa soo arooree fara badan taad akhridaba dhib ma laha sidaad nabigu ugu sallida salaada gaar ahaan iyo bannaanka waxbaa kala duwan bannaanka sala allahu calayhi wasalam iyo allahuma salli calaa muxamed iyo intaasaa lagaa ogolyahay salaadda laakiin maya waayo nabiga alay slam saxaabadu weydiiyeen o dhan rasuulka ilaahi waxaa nala amray inaan kugu sallino salaadda markaan tukanayna saan kugu sallinaa isagaa baraya marka jidkaa waa caddeeyey allahuma riwaayaad badan weeye midun aan ka soo qabto allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid taasaa ka mid a waa ilaa 7-8 riwaayo oo kala duwan baa ku soo aroortay markaad salligaa akhrido iska ducayso falyadcu bimaa shaa ducadaad ugu jeceshahay iyo baahidaada iyo ku ducayso sujuuddana intaa markaad akhrido ku ducayso rukuucdana waa ku ducaysan kartaa markaa kadib assalaamu calaykum oo midig iyo bidixa inaad ku gaabsato assalaamu calaykum assalaamu calaykum intaa waa la ogolyahay tan midigtaa iyo tabiixda inaad tiraha assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullahna waa la ogolyahay waxaa saddexaadoo la ogolyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullah tabiixda wabarakaatuh ma leh wamakfiratu iyadu meel laba kuma jirtaba wamakfiratuhu meel laba kuma jirto waa laba marka laga dhigo waxaa la ogolyahay oo kaleeto assalaamu calaykum adoo horey usii jeeda qiblada kadibna aad saa wax yar dhahdo taana waa la ogolyahay saa darteed hal mid bay salaada ku dhammaataa ta kalena sunno wey ta kale qasab maaha intaa markaad dhammayso jaantaafuran wey salaaddii way dhammaatay ducada dambe salaada ka mid maaha adkaarta way fiicanta inaad iska akhrisato laakiin salaaddii waan dhammaynay an waxaad igu ogeyn salaaddaad igu ogeydeen soo ma axkaamteeda salaaddii way dhammaatay intaa waxay ka dambeeya nin iyo hawshii iyo dantii wey ninkii wakti haya ninkaan wakti haynin ninkii fadhihi adkaar akhrisanaya ninka hore isaga kici ninkii qur-aan akhrisanaya ninkaan akhrisanaynin ninayo hawshaa iyo waktigaa iyo dantaa wey iska soo deg hadda dad ba haddaan imtixaano meesha camera la gelayaayo dadka waxoogay soo kaca inaa idin dhahan rabay marka hore lakin waan iska cabsaday eeddaan ka cabsaday cumuuman inahaas weeye horta waktigan ba idinku dheeraado 9 daqiiqay maraysaa haddaad su-aalo qabtaanna waan wadayna waan idinka jawaab aniga haddaydaan su-aalo qabinna salaadaynu tukanayna